haddii aad isleedihiin war ninkan muxuu ka sheekeynayaa 3 bedroom oo 1 month lagu kireynayo Kilimani iyo Kileleshwa $2,000 ilaa $3,000 ilaa $4,000 ninku muwaalan yahay. maanta waxaan rabaa inaan asxaabtayda la wadaago dad badan soo weydiiya dhahaya mataqaanaa xaafadii waa noo sheegtay guryaha qiimahooda rabna mataqaanaa 3 bedroomka 2 bedroomka 1 bedroomka 4 bedroomka 5 bedroomka Soomaali baa xataa rabta mataqaanaa raadisa 6 xataa Soomaali baa raadisa maasha Allah mataqaanaa Ilaahay noo barakeeyo family iyo dad mataqaanaa waxaan nahay adduun ka duwan dadka kale dad xiriiriya maartay siltu ruximka aad maartay dadka waxa weeye wajigooda u nuura cimriga Ilaahay u barakeeya Ilaahay maartay barako badan buu siiyaa dadka silatu ruxim in qaraabada la xiriiriyo oo waxa laga yaabaa nin baa maartay gurigiisa waxa jooga sodohdii mataqaanaa sodohdiis walaasheed sodohdiis walaalkeed oo jooga seediyaashii ay guriga joogaan maasha Allah marka daasoo Soomaali guri badan qolal badan u raadiyaan aad iyo aad baan ugu taageerayaa aad wali Soomaalida qoomiyad lamid ma arag wallahi so far dad aad isu xiriiray weeye marka waxa idin soo diyaarinayaa listiga maaragtay oo priceska guryaha mataqaanaa Backland oo kala 2 qol 3 qol 4 qol in la siiyo inkastoo Backland ay u baahan tahay sidoo kale aan sheego system waxa jira xaafadaha ay u kala guriyo mataqaanaa qolal badan yihiin baa jirta hadda Backland oo kale 1 bedroom Backland 1 bedroom is very rare waa dhif iyo naadir Backland ina 1 bedroom ka hesho si isliyo kale weey si soodbi 1 bedroom ina ka hesho aad iyo aad buu adagtahay taa cagsigeeda waxa Kilimani iyo Kileleshwa inaad ka hesho 5 qol iyo 6 qol inaad ka hesho iyo Lafton iyo aad bay u adagtahay oo sid biskuyin marka dad min waxay ku cadeynaysaa xaafadna waa qolal yar tahay xaafadna waa qolal badan tahay oo dad min waxay ku cadeynaysaa xaafadda qolalka badan baa xaafadda family-ga oo residential-ka oo mataqaanaa oo dadka family-da waaweyn ee degan sida hadda Kilimani oo kale Lafton iyo Westland oo kale aad ugu helayso 1 bedroom 2 bedroom ugu helayso hadda ka soo qaado kale qof haduu ku dhaho 3 bedroom baa rabaan 4 bedroom oo Googlen walaa Lafton ma ka helaya ama Kilimani ama Kileleshwa aad iyo aad buu adagtahay waayo building marka la dhisayo dadku market-ka way raacaan company guriga dhisayo marka Kileleshwa iyo Kilimani company guriga ka dhisayo 1 bedroom 2 bedroom buu badiyaa boqolkiiba 80 1 bedroom 2 bedroom ka dhigaya 20 ka soo haray wuxuu ka dhigayaa 3 bedroom oo mataqaanaa cidna ma gadato marka dad badan baa waxay rabaan inay soo degaan oo xaafadda waxa ku leeyihiin clean isma keenayso waxa ku leeyihiin xaafad clean rabaa lacagtooda way awoodaan xataa way awoodaan waayo 3 bedroom ka kale waxa lagu kireeyaa bishii $2,000 ilaa $3,000 buu dhaxeeya waa Kilimani indhaha fura hadaba bishii way waa bishii $2,000 baa bishii lagu kireeyaa ama $3,000 guriga haduu 3 bedroom iyo 4 bedroom hadda qof meel intuu soo fariisto wuxuu jecel idin ka sheekayo way soo dhamaatay kaliya anuu meeshan waxaan ku bixiyaa information haddii aad isleedihiin war ninkan muxuu ka sheekeynayaa 3 bedroom oo 1 month lagu kireynayo Kilimani iyo Kileleshwa $2,000 ilaa $3,000 ilaa $4,000 ninku muwaalan yahay inaas dhadan baa yaaba waxa fiirisaan Google-ka ku qora 3 bedroom raadiya oo Googlen oo rabtaan inaad kirisataan marka dad badan uma heloba wuxuu ku leeyahay meel clean rabnaa waa isfirrer waa lagu jiraa dad baa ku jira ma banaanaba waayo building lisaba hadii 20 maartay percentage oo ka yahay 3 bedroom marka probability aad buu yahay mataqaanaa inaad hesho marka waxaan sameynayaa listka in soo qoraya 3 bedroom ka rabtaan iyo 4 bedroom ka rabtaan iyo listka in soo qoraya marka waa in salaamaya maalin wanaagsan baa idin leeyahay